Asalaamu calaykum saaxiibayaal, kulan wacan idilkiinba kuna soo dhawaada sheeko taxane ah oo ku saabsan socdaalkii Hargeysa ilaa Muqdisho, kaasi oo aan uga amabaxay magaalada Muqdisho anigoo ka amabaxay magaalada Hargeysa sanadii 2020 dhaaftay bishii 7 sheekadan waxaa ku bilaabantay sidan. Waa maalinimo Khamiisa 8 bishii 7 2020. qorshahaygu waxa uu ahaa inaan amabaxo magaalada Muqdisho anigoo ka dhaqaaqay magaalada Hargeysa, balse qorshahani ma ahayn mid muddo dheer soo socday isla mar ahaantaasina aan xoog uga sii shaqeeyay, laakiin waxa uu igu dhashay toddobaadadii la soo dhaafay, taasi oo aan u tegayay sababo ay ka mid ahaayeen waxbarasho. qorshahaygu waxaan ku wada soconay aniga iyo saaxiibkay Cabdinajiib Xasan Yuusuf, kaasi oo aan ugu amabaxaynay magaalada Muqdisho ee caasimadda dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa ay ahayd 5:40 subaxnimo markii aan kasoo jarmaaday gurigaan ka deganahay magaalada Hargeysa, isla mar ahaantaasina aan usoo jahaystay bartamaha caasimadda anigoo soo qaatay mid ka mid ah tagaasida caasimadda ka shaqeeya, kaasi oo aan ku yimi halkii aan ka raaci lahaa gaadiidkii aan u raaci lahayn, gaar ahaan mid ka mid ah shariikadaha ka shaqeeya u kala gooshida ama dadka u kala qaada magaalooyinka Hargeysa ilaa Garowe. Waxaan soo gaadhay muddo ku siman 17 daqiiqo kadib goobtii aan ka bixi lahaa, laakiin qorshaha kuma darsan in gaadhiga aan raaci doonaa uu ka habsaami karo ama ka dib dhici karo waqtigii aanu la ballanay, maadaama uu xalayto aan sii goostay tigidhka. Waxba iskumaan hawlin in aan kala doorto gaadiidka baxaya, laakiin waxaan u diyaar garoobay in aan indha-indheeyo xaaladda iyo sidoo kale in aan sugo saaxiibkay oo ka imanayay dhanka kale ee magaalada, isla mar ahaantaasi aanu ku ballansanayn goobtani, walow uu isagu soo raacayay gaadhiga aanu raaci doono oo rakaab halkaasi ka soo qaadayay, laakiin isaga qudhiisu ma uu sii sugin gaadhiga uu soo raaci lahaa, balse si degdeg ah ayaa uu soo baxay markii aanu sheegay inaan goobta joogo. Waxaana uu soo gaadhay muddo ku siman ilaa 40 daqiiqo kadib. Waxaan ka quraacday goob aan ka fogeyn goobtaan gaadhiga ka raaci doono, isla mar ahaantaasina waxaa soo istaagay gaadhigaan raaci lahayn iyadoo lagu raray alaabtii uu qaadi lahaa. Waxaanu gaadhiga ku saarnayn 12 qof. Gaadhigu waa nooca basaska yaryar ee u kala goosha Somaliland iyo Puntland, isla mar ahaantaasina waxaanu xagga dambe ku saarnayn 4 rag ah, kaasi oo qofka noogu daaweynay uu ahaa oday 60 kor u dhaafay sidaan qiyaasay. Waxa uu ahaa shaqsi waqti badan nala qaatay, isla mar ahaantaasina sheekooyin badan nala wadaagay, laakiin waxaanu magaalada Hargeysa ka amabaxnay 8:40 subaxnimo aan ka dhamaanay kantaroolka bari ee magaalada Hargeysa. Bari marka la yiraahdo waa markii ugu horeysay aan socdaal ugu amabaxo dhanka bari ee Somaliland, isla mar ahaantaasina wadada Hargeysa iyo Berbera xidhiidhisa waa markii ugu horeysay aan maro, inkastoo ay iga soo gaadheen sheekooyin isugu jira naxdin iyo sidoo kale kuwa kale oo ay ka mid yihiin sheekadii cilmi boodhari, laakiin sheekooyinka igu naxinta badnaa waxaa ka mid ahaa shilalka aagaasi ka dhaca oo aad u badan, gaar ahaan inta u dhaxaysa deegaanada Barkadle iyo magaalada Hargeysa oo ay ku badan yihiin booyadaha biyaha siiya qaybo badan oo ka mid ah caasimadda. Waxa aanu ku qasbanayn in gaadhiga aan xawli loo wadin maadaama oo wadada dhismo uu ku socday, isla mar ahaantaasina goobaha qaar ay ka xidhnayd. Taasi waxa ay sahashay in aanu si fudud u soconno, isla mar ahaantaasina aanan cabsi badan aanan dareemin, laakiin rakaabka ila saaran gaadhiga intooda badan waa dad soo maray deegaankan ama hore u maray. Gaadhiga dadka saaran intooda badani waxa ay u socdeen magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar, marka laga reebo dhowr qof oo aan ku jirno aniga iyo saaxiibkay oo u socday magaalada Garowe iyo Boosaaso. Waxaanu magaalada Berbera gaadhnay 10:40 subaxnimo, halkaasi oo aanan ku hakan, laakiin bartamaha Berbera markii aanu maraynay xaaladda waxa aad moodeysay inay ahayd 2 duhurnimo. Kuleylka ka jiray magaalada Berbera awgeed waxaanu ka cabsanay inay gaadhiga taayiradu wax noqdaan. Daaqadaha oo aanu dejinay waxaa naga soo galay uumi kulul, laakiin waxaanu ku qasbanaanay inaanu daaqadaha dallacno. AC-ga ama qaybta hore ee qaboojiyaha darawalka ku xidhiidhsan ayaana siinayay hawo aan nagu fillayn, laakiin aad mooday jawiga inay waxoogaa wax ka beddeshay.
Kantaroolka magaalada Berbera looga baxo dhinaca Sheekh markii aanu gaadhnay waa kantaroolka ugu badan ee la isku baaro isla mar ahaantaasina la dhigo sawirada dadka la baadi goobayo haddii ay noqoto dhalinyarada tahriibta ee u baxda dhinaca Boosaaso iyo sidoo kale dadyow la raadinayo ama xaalado kale ay la soo gudboonaadaan. Waxaanu ku qasbanaanay inaan halka istaagno si loo sameeyo baadhitaan iyadoo la isku eegayay sawirada dadka gaariga saaran iyo kuwa goobta yaala, balse kumaanan dheeraanin oo markiiba waanu ka dhamaanay. Waxaan qorshahayagu ahaa in aanu ka qadino deegaanka Hodisa sida uu noo sheegay darawalka gaariga wada. Daqiiqado kadib waxaanu soo gaadhnay deegaanka Hodisa qiyaastii 12:15 duhurnimo, halkaasi oo qorshahayagu ahaa inaanu ka qadino waxaanu ku hakanay halkaasi. Qaybta labaad ee barnaamijka intaaynu isugu iman doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo. Haddii aad u aragto barnaamijkan wax laga bedelo fadlan noogu soo qor qaybta hoose ee aragtidaada.